السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. موضوعنا maanta waxaan ku soo qaadan doonaa qayb yar oo kamid ah Valentine Day ama maalinka jacaylka adduunka. bisha February waxaa dhici jiray isku soo baxyo ay sameyn jireen dadkii Roomanka ahaa, waxayna ugu magac dareen Lupercalia. Luper macnaheedu waa yey Ingiriiska ku noqonaysa wolf, iyagoo markaas sawiri jiray yey eryanaysa gabar yar. Haddaba Lupercalia waa u dabaaldegayda. Markaad si dadban u eegto, waxay ula jeedaan ragga axmaqiinta ah ee u galmooda gabdhaha yaryar iyagoo ugu soo dhuumanaya maalinka jacaylka. Jacaylku waa shay ku abuurma laabta, lana dhasha naf walba. Hadiga iyo waxa uu Islaamku ka yidhina waa wax macruuf ah oo la wada garanayo, balse waa wax lagu magacaabo ciidda jacaylka ama maalinka jacaylka adduunka. Asalku ma lahan diinta Islaamka, balse waa nooc ka mid ah ciidda ugu foosha xun ee Kiristaanka. Asalka maalinkani ama ciidani waxay u noqonaysaa Roomankii hore. Waxay u dabaaldegi jireen ciid magaceedu ahaa Lupercalia maalinta 15aad ee February sanad kasta. Qurbaan ayay u soo hoyn jireen ilaahoodii ay ku andacoon jireen ee Larkas inuu ka ilaaliyo xoolahooda weerka si uu kaga cuno intuu ugaarsado. Ciidaasi waxay waafaqsanayd xilligii guga ee fasaxa taariikhda xilligaasi, balse mar dambe ayay isku bedeshay 14 February. xilligaana waxay ahayd qarnigii 3aad ee taariikhda miilaadiyada. xukunkii Imbraadoriyadda Roomanka ee maamulayay Claudius-kii labaad wuxuu askarta ka mamnuucay inay guursadaan, asagoo daliil ka dhiganaya in haddii ay guursadaan inay reerkooda kaga mashquuli doonaan dagaalka iyo shaqada. Nin magaciisu ahaa Valentine oo loogu magac daray ciidda gaalada ee maanta loo yaqaano maalinka jacaylka adduunka ayaa arrinkaasi ka hor yimid, wuxuuna ku dadaali jiray in si hoose la isku guursado, balse arrinkaasi ayaa soo shaacbaxay. Waa la soo qabtay, xabsiga ayaana la dhigay. Intii xabsiga uu ku jiray ayuu jacayl kala dul dhacay gabadhii uu dhalay ninkii xabsiga haystay, waxaana xukunkii dilka lagu fuliyey 14 February sanadkii 270 miilaadiyada. Reer galbeedku waa Maraykanka iyo reer Yurube waxay maalinka ku asteeyeen maalin naadir ah. Jinsiga iyo galmaduba tahay xad-dhaaf saa'id ah, iyadoo ardayda jaamacadaha iyo dugsiyada sareba ay si aad ah ugu diyaargaroobaan maalinkaas. Isku soo wada duubo, waa munaasabadda sinada iyo fuxshiga ee muqadaska ah gaalada agtooda. Haddaba sidee ayay ugu soo dhuumanaysaa oo dadka haysta diinta ay u sugnaatay ciisada iyo sharafka iyo karaamada ee Islaamka, oo ay u buunbuuninayaan ciid gaaleedkaasi qurunka ah ee qaabdarrada iyo qiimo la'aantu haraysay. Haddaba ugu dambayn, waxaanu leenahay hambalyada iyo ka qaybgalka maalinka ciidda maalinka jacaylka adduunka waa xaaraan. Ogowna nabigeenii Muxamed sallallahu calayhi wasallam ma ogolayn ciidaha gaalada iyo kuwii jaahiliyadda. Islaamku waxa ay leeyihiin keliya 3 ciidaad. Midda koowaad waa Ciidul Fidri, midda labaadna waa Ciidul Adxa, midda kalena ee saddexaadna waa maalinka Jimcaha. 3daas ciidaad waxaanu ahayn uma sugnaanin Islaamka. Waad ku mahadsantahay daawashada aad daawatay muuqaalkan. Fadlan haddii aad ku cusub tahay channelka, subscribe saar, gambaleelkana furo si aad u noqoto daawadaha ugu horeeya ee daawada muuqaalada aan soo gelino. Mahadsanid.